Soomaali oo dhan halkan aanu u wadnay halkan ka waxaanu u wadnaa kuwa iminka le waa goosanayna ee galbeedka naga xiga ee le waa goosanayna inaanu iyagana shacbigooda xoreyno oo kuwa haysta ee xoogga ku haysta iyaga dulmane aanu ka xoreyno waxaan xasuustaa beri maxay ahaydtay فلسطين يقال لو جراعة يقول دبعت بدني كشرتي بعد بيت أو حلقوا قبتي إنجليز برنامج كان بقى يصير هذا ويقام قيها هي مركا وحفني بان البافني كشواب يوم هاي وحايدتكم إلى هذا وحال قبل بفرت التكتور قبل مرة كان يحيلو وحايتي للنوي هو أنا مريكا بانكين مدة سنة دي براني بك يوروب دجنة سنة دي بركة عن دجنة يوروب وحنا وقالي هدي أدون إنسان إن فلسطين الحرية وحاندين هي شعب لقوم يستو وهدوك وحيا هاي كحوق بدن وحنا ذخري سانودا شعب كاسوا شعب كيان كيو بيتني مريكا عن كجيبي waxaan beenahay looma sheego waxay dawladdaasi rabto oo muraadkeeda oo baa loo sheegay waxaan anagu u soconaa shacabka berbera iyo hargeysa iyo boorame intaba jooga inaanu ka xoreyno dulmiga iyo xaq darrada lagu haysto Soomaalinimadana ay sida ku suurowdo waxa hubanti ah annaga gooja caddi xoreynteedii waxay noo ahayd guul hal goob keliya ku goobood baa ka dambeeya guusha innaga barnaamijkeedii ma dhammaaneen inaynu maxay ahayd haddii lagu samagolay gooja cadda uu nimankii ka saaray ee ilaa kuwa aan ka hadlaya aynu ka xoreynayno waynu wadaynaa halgankeena laba eray baan waxaan rabaa inaan ka idhaahdo midii waa dhaqaalaha oo safarka iyagu qayb weyn waxay ka mid tahay inaanu ku baraarujino ma aha reer SSC kaliya ee dadyoga xaqu dirirka ah ee maanta halkan kan u dhan ee D5 ah oo idin garab taaganahay ruushku kaliya sameyn mayso shaqayn mayso in xoogga iyo siyaasadda labadaba lagu taageero maamulka SSC waa maamul cusub maamul hadda dhashay weeye maamul madasha la isugu imanayo garabkaaga fadhiyaya waxaan xasuustaa Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo maalin u tagnay marka wuxuu ka yimi Baydhabo oo shirki madasha laga soo baxay marba Baydhabo ka warramaano wuxuu yiri inaan madi ahay baan ku soo ogaaday Baydhabo way siciid baa ka maqnaa meesha marka madi dambe haddii midkeen ka maqnaado cidina madi ahaan mayso laba mar walba joogayo xaadira iyo wixii kale aynu soo xaareynaba marka waxaa laydinka rabaa haddaad D5 tihiin maamulka kan afka uuna ka taageerine inaad adinka iyo jeebka iyo siyaasadda labadaba aad ka taageertaan war ma taageeraynaa hoy war hadalku ma tii ruushka uu idin garab taaganahay mise waa dhab waaye maamulka kan aad aragtaan haddii lagu samagol yahay presentationka imika uu sameynaya wasiirku wuxuu yidhi boqolkiiba 40 dhaqaalaha maxay ahayd qurbajoogta ka imanaysa qurbajoogta waxaa laga rabaa dhaqaale laba dhinac dhaqaalaha koobaad waa ka maamulka loogu deeqayo si uu difaacana u xidho maxay ahayd horumarna uu u sameeyo dhaqaalaha kale waxa weeye inaad maal gashataan dadkii iyo dalka inaad maal gashataan shaqo abuur samaysaan ganacsiyo meesha aad ka samaysaan taasi hadday timaado maamulkuna wuxuu helayaa cashuur buu ka helayaa iyaga idinkuna waxaad ka helaysaan dadkiina shaqaad oo abuuraysaan idinna lacag baad helaysaan oo lacagteed xagga kale ku bixinayseenba halkan idinka soo noqonaysa marka yaan loo dayman la'aanin
كل ما ويسكو هذي دونايو حسنا وين سكو ديك دونا رئيس سي خاتمه هدي الله كوسو كل هاي وحبذا ما نتمنى إن قاربين لوجو وضع هذي دونا هدي الله قرب الشوكة دقالها كلية ما هو حال الربع حالك وحكوا كي قبل مرة وين تاجنيدو لهين هلا يقول تاجر عد هاي تهدي القصة وقولي هاي ودوري سيدي كقيم قادته وقال كسياسة ده دلك كنا ينشوفه وحنصوم مرة إنجليز وحنصوم مرة إيطالياني وحنصوم مرة بلجيكي waxaanu soo aragnay SNM inay hantiday maxay ahayd dad badan oo maamulka dawladaha ku jira waxa ay dhaafi laayihiin qaarkood rabitaanka guud ee dawladaha waaweyn bay dhaafi laayihiin qaarkood mar hore oran lahaayeen waanu idin ictiraafnay waxaasina waxay ku yimaadeen iyada oo laynooga dheereeyay inaynu ka qayb qaadano siyaasadda dalalka kana joogtaan carruur bay idinku dhalatay waxbay ku barteen injineer noqo iyo dhakhtar noqo iyo neeris noqo unbaa idinka soo hadhay siyaasadda ha la galo waxaan la codsanayaa gabadhii lahayd siyaasadda gelaya war ma u wada codaynaa codka ma wada siinaynaa إله وداوي إذا كانوا حالين كربا إن كذب تكتم قوة SNMT هذا لكم سمقولي هاي ولي مع علادي يعقد اللجوء أبوري إن أيضا إذا كحسن مدارها لجوء كوين يو سياسة الصومالية لجوء قتالين وحن كجب حياة وحن كجب حياة ورقي هاي تعشنا وين سوقسا ملا مددالا فربضان وكلنا وين سوقسا SSC خاتمه waxa ay sugaysaa dalka gudihiisa dadka joogana waa ku mid waa uliya diirkeen dibadiisana maxay ahaaytay haday dhaqaalaha tahay hadaad maqasheen ama dawlad baa dhalatay ama gooch cadaan la saaray qof waliba barkintu dheeraystay waroy haday xumaato ilaahay ma yeelo ilaahay ma saamaxla samaxalla haday xumaato eedeeda waxa qaadanaya waa idinka wiilka ka ku dhintay iyo ka imika dhaxanta u jooga ee gaajada u jooga ee safka hore difaaca ugu jira kama wanaagsanidin isba hooyayaa baa dhalay wuxuuna diyaar u yahay inuu isagu u dhinto taa idinkuma waxaa diyaar u noqon weydeen inaad $100 ugu deeqdaan bil walba maxaad xaflada la isugu yimaada macnaha ay samaynayaan ma jirto berigaynu xafladayn jirin berigii hore aynu niyadda dhisanayna yahay maanta waxqabad baa laynaga rabaa waxqabad rasmi oo dhabaa laydinka rabaa waxaa dhaba barnaamijka uu wasiirku sheegaya qof walba maxay ahayd halka lagu systemka uu ku jiro waana wada hayaan dawladdu way wada haysaa magacyada oo dhan qof kasta kuwa say wallahi halka ku dhashay waa la hayaa magacyadooda soo waran karteen ma qofkii reerkeena wax ka haradow qodhay xiradaaba miyaynu rabay anna ku sahalay baynu oranayna qodhay xiradaaba jabta ka oran mayne war idinka idin joogta say nuguusha u gaareen qaybteeda dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh aad u mahadsanyahay madaxweynihii hore maxamed yuusuf jaamac indhasheer waxaan ku soo gabagabanaynaa waxaa hadda khadka ku jira xafiiska xiriirka jaaliyadaha qurbajoogta SSC Khaatumo xafiiska laga furay Laascaanood hadda waxay u tahay 11 barkii habeenimo si toos ayaa live loogu jiraa halo assalaamu calaykum ma maqlaysaa حاجة كلها لسه حاجة كلها لسه لوكيشن لا تعرف كان عليها
واي شقادو سيده سقطا والله شخص عنده سقطا لما كنت وفري شغل ما في عبد الورقة وكان الفضوية إن شاء الله وقبل الدرجة إن شاء الله وزين عينا حكيم الدرجة إن شاء الله نتجاوب واي فرينتا جاليد دمايد ما كداون صا ليسنسا فرينتا كنت مسؤول درس محيطا والله دي ما تنتهي إن شاء الله عندي كويدي فري إن شاء الله ويجري على ذلك الدعوة ونسولون هناك نسولون سجن كده نسولون حديث كبوه إلى يبني رجال إن شاء الله ما يكون عشان أنا نسولون عشان إن شاء الله نسولون كنا كنا جهاد كنا جسر كنا إن شاء الله نمانا إن شاء الله نجينا له وحديث كلا بعضه ونكمل إن شاء الله ويجوا ونسولون أنا والله إن شاء الله مرة والله عم جاي كنا نتكلم صادق واي أدو ما سلطان أدو ما سلطين dhammaan marti sharafta waa mahadsantihiin runtii naga raali ahaada khudbadii waan u dheeraaday dhalinyaradu kuraasta waa hay kari waayeen fanaaniinta way nala joogaan waa cashaynaynaa markaynu cashaynana insha allahu tacaala dirgah ala dirgah waad bixi doontaa insha allah